Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa mar kale iyo channelkeennii Dhoolacase oo MW oo mar walba u taagan sidii uu idinku soo bandhigi lahaa jaanisyada amba scholarship-yada ay ardayda Soomaaliyeed xareysan karto ee adduunka oo dhan ah. Maantana waxa aanu idin wadnaa scholarship master ah oo la xidhiidha ardayda baratay sharciga. Haddaba scholarship-kaas yaa bixinaya waxyaabaha laga doonayo. Scholarship-kaasi waxa uu yahay howlahaas aynu waxyar ka taataaban doonaa. Haddaba scholarship-kan cidda bixinaysa waxa weeye waa ururka la yidhaahdo Center for Human Rights oo u taagan sidii uu kor ugu qaadi lahaa tayada xuquuqul insaanka ee qaaradda Afrika. Ururkaasi xaruntiisuna ay tahay dalka South Africa, caasimadiisa Pretoria. Haddaba ururkaasi waxa uu xidhiir la leeyahay jaamacado badan. Jaamacadda ugu weyn ee xidhiirka tooska uu la leeyahay waxa weeye waa University of Pretoria. Waa jaamacaddaas oo ku taala caasimadda South Africa. Haddaba waxa aynu tegaynaa Googlaha, kadibna waxa aynu ku qoraynaa ururka magaciisii si uu website-kiisa noogu soo saaro. Waxaanu odhanaynaa Center for Human Rights keliya intaasaynu ku qoraynaa. Kadibna waxa uu inoo soo saaraya linkiyadan. Linkiga saxda iyo waa kan www.chr.ub.ac.za. marka kaas aynu ku dhufanaynaa homekaas. Kadib waxa uu inoo soo saarayaa linkigii. Marka aynu ku dhufano home page-kan ayaa inoo soo saarayaa. Home page-kani waxa weeyaan waa website-kii uu lahaa ururkani. Marka waxa aynu kasii tegaynaa academic. Marka aynu tagno waxa aynu kasii dooranaynaa scholarship-ka magaciisii. Scholarship-ka magaciisii waa ka LLM MVL Human Rights and Democratization in Africa. kaas aynu kusii dhufanaynaa. Kadib waxa uu inoo soo saarayaa page-kan markaynu scholarship-ka magaciisii ku dhufano. Haddaba page-kani waa page-kii uu kaga sheekeynay scholarship-kani waxa uu yahay iyo inta jaamacadood ay ka qayb qaadanaysa, waqtiga uu dhacayo, danaha laga leeyahay scholarship-kan iyo howlahaas ayuu kaga sheekeynayaa. Haddaba scholarship-kani wuxuu ku yidhi waa scholarship master ah oo la xidhiidha ardayda soo dhammaysatay bachelor degree-ga lowga. Sidoo kale arday kale jirta oo ardayda kale ay xareysan karta scholarship-kani waxa weeye waa ardayda aan soo dhammayn degree-ga lowga. Se iyagu waxay ku xareysan karaan waa ardayda honor-ka ka qaatay faculty-ga ay sitaan ee la xidhiidha sharciga. Tusaale ahaan oo kale ardayga masterta scholarship-kan xareysanaya wuxuu soo baranayaa sanad. Marka scholarship-kan waxaa ka qayb qaadanaya 12 jaamacadood. Sidoo kale ardayga ku guuleysta waxa uu scholarship-kan ku guuleysta kadibna soo dhammaystiraa course-kaas waxa uu ka mid noqonayaa ururkan Center for Human Rights-ka oo ay ku jiraan 537 xubnood oo ka kala socda dalalka Afrika. Ururkani waxa uu wadada u sii xaadhaya ardayga si uu ururada dawliga ah uu ugu biiro international-ka ah sida African Union-ka iyo qaramada midoobay. Haddaba application deadline-ku waxa weeye waqtiga uu dhacayo scholarship-kani waa 15 Abriil. Haddaba danta laga leeyahay ardayda in scholarship-ka loo soo bandhigo
waa to train human rights experts who can be employed. waxa weeyaan in la tababaro arday u tababaran xuquuqul insaanka oo ka shaqayn kara xuquuqul insaanka, expand collaboration among African universities, sidoo kale in ay ballaariyaan xiriirka ka dhexeeya jaamacadaha Africa, sidoo kale in develop a relationship between the African masters and the regional masters, sidoo kale in ay kor u qaadaan amba ay abuuraan xiriir laga dhexaysiinayo ardayda masterka ee Afrikaanka iyo sidoo kale ardayda kale ee masterta ee dalalka kale ee kasta xuquuqul insaanka. halkana course detailska waxa uu ku sheegayaa waxa ugu muhiimsan ee ku sheegaya in ay tahay in scholarshipkan yahay hal sano oo u kala baxaya 2 semester, sidoo kale uu ku bixinayo course-ka lagu bixinayo luqadda Englishta ah, sidoo kale ardayda aan waxbarashadooda heerkoodii ugu dambeeyay waxbarashada aan kusoo baran tusaalahaan English in ay la yimaadaan warqadooda Englishta iyo howlahaas ayuu ka hadlayaa. scholarshipkan wuxuu ku leeyahay halkan a limited number of up to 30 students are selected per year. wuxuu ku yidhi 30 sanad walba 30 arday ayaa la qaataa scholarshipkan, kaas oo laga bixinaya ardayga waxbarashadiisa waqtiga uu ku jiro, kharashka waxbarashada kaga baxaya, dalxiiskiisa iyo waxyaabaha kale la xiriira programka uu baranayo. hadda waxaynu u gudageli doonaa guideline-ka amba habka waxyaabaha inaga saacidaya si aynu u xareysano scholarshipkan. haddaba guideline-kii baynu tegaynaa. how to apply buu ku yidhi sidee ayaynu u xareysan karnaa. haddaba scholarshipkan sidii hore kusoo sheegay 2 arday ayaa ka qayb qaadan kara. ardayda baratay sharciga ah qaybta sharciga oo ka qayb qaadanaya scholarshipkan. sidoo kale waxaa ka qayb qaadan karaa ardayda aan sharciga baran se ka qaatay honor ka ahaa faculty-gooda, sida faculty-yada la xidhiidha human rights-ka. labada arday ayaa ka qayb qaadan kara. sidoo kale general admission requirement the following specific selection. haddaba marka la kala xulanayo ardayda waxa ay awoodda saarayaan scholarship committee amba guddidan kala xulaysa ardaydu in ay u eegaan qofka ardayga akademigiisa, darajooyinka ardayga iyo waxbarashadiisa, sidoo kale interestka uu ka leeyahay scholarshipkan uu xareysanayo iyo ka go-naanta ay ka go-an tahay inuu barto xuquuqul insaanka iyo dimuqraadiyadda. sidoo kale waxay awoodda saarayaan inuu ardayga ku guuleystaa inuu noqdo mid u diyaarsan, sidoo kalena aqoon sare ka leh xuquuqul insaanka, si uu hadhowtoole dalkiisa ugu gudbin lahaa xuquuqul insaanka waxa uu kasoo bartay. sidoo kale waxay u eegayaan geographic ahaan halka uu ardaygu tusaale ahaan oo kale degan yahay amba uu dalka uu kasoo jeedo. oo tusaale ahaan waxaa jira dalal ay scholarshipkani u arko inuu ku yahay lid uu ku yahay Africa. tusaale ahaan oo kale haddii dadka xuquuqul insaanka dalalka aan xuquuqul insaanka aan laga tixgelin oo iyagu saarayaan pressure in aan scholarshipka aanay ka qayb qaadan amba dhibaatooyin kale haystaan. sidoo kale gender representation halkan sidoo kale waxay awoodda saarayaan qofka labnimadiisa iyo dhadignimadiisa iyagoo eegaya si siman oo ardayda gabadh iyo inamaba wax xareysan karaan. sidoo kale waxaa ka qayb qaadan kara oo lasoo xulan karaa ardayda disabilitieska, ardayda sida ardayda curyaamiinta ah hadday il tahay, hadday in ay leeyihiin, hadday il leeyihiin, hadday lug leeyihiin iyo dadka handicapta ah oo ay ka qayb qaadan karaan oo awoodana waa la saaraya kuwaas. sidoo kale marka ay halkana waxa ay ku sheegayaan habka loo kala xulanayo ardayda.
oo in yaro kooban ay kaga sheekeynayaan. Marka waxa uu ku leeyahay all complete application received in particular year. Arday wal oo soo xaraystay applicationadoodii waa la eegayaa oo qaybta isku dubaridka programkan iyo managerka ayaa kala xulay oo eegaya. sidoo kale cid ay u arkaan 3 jeer laab cid ay u arkaan inuu ku wanaagsan yahay scholarshipkan ayay soo xulayaan. kadibna qofkaas ayay la soo hadlayaan oo ay ka codsanayaan in uu kasoo qoro essay amba qoraal dheer uu kaga sheekeynayo topic amba ciwaan ay iyagu dhiibaan ay ku yidhaahdaan maxay ahaydee ciwaankaa kasoo sheekee oo 24 saacadood ay tusaale ahaan u qabanayaan si uu kusoo gudbiyo. sidoo kale waxaa laga doonayaa ardaygaas in interview lagaga qaado video amba cod ahaan. sidoo kale marka qiimeyntaas waxaa sameynaya madaxa isku dubaridka programkan oo matelaya facultieska la soo xayeysiiyey. then wuxuu ku talinayaa in ardayda uu sidoo kale uu soo kala xulo interviewga kasoo gudbay iyo topiga marka uu isna soo qiimeeyo ayuu ku talinayaa ardayda uu isagu soo xulo in ardaydaas la abaalmariyo scholarshipka lagu abaalmariyo. marka final selectionka waxa weeye waa doorashada ugu dambeysa waxaa sameynaya full admission committee guddida ugu dambeysa ee kala xulista scholarshipkan consistent oo ka kooban chair of the council of directors madaxa guud ururka ururkan isku dubaridkiisa. sidoo kale the director of the center sidoo kale agaasimaha ururka xuquuqlisaanka sidoo kale caawiyihiisa iyo madaxa isku dubaridka programka iyo managerka academiga ayaa intaas oo qof ayaa isku tegaya. kadibna waxa ay soo saareen go-aanka ugu dambeeya ardayga ku guuleystay. halkana waxa aynu ku eegeynaa waa ka halka laga xareysanay application procedure. all applications are handled via the online application ayay ku xareysanayaan. waynu soo noqon doonaa sidii aynu hore usoo sheegnay deadline-ku waa 15 April 2020 sanadan aynu ku jirno. haddaba waxyaabaha lagaga baahan yahay waxaa documentska lagaga baahan yahay si aad u xareysato scholarshipka. waa inaad soo diyaarsataa academic records and transcripts darajooyinkaagii heerarkaagii waxbarasho ee soo qaadatay sida digrigaagii iyo secondarygaagii. sidoo kale waa inaad soo diyaarsataa shahaadooyinkaagii heerarkaagii kala duwan ee waxbarashada. sidoo kale waa inaad copy kasoo qaadataa baasaboorkaaga qaybta uu personalka informationkaaga ku qoraysa sawirka iyo magacyada halka kugu qoran yihiin. sidoo kale a good quality photograph of yourself waa inaad soo diyaarsataa sawir qur ah. sidoo kale for applicants who did not obtain their qualification in English bukuri halkan waxa uu kuuriyay ardayda xareysanaysa scholarshipka ee aan kusoo baran waxbarashadoodii English qaab English ah waa inay soo gudbiyaan TOEFL iyo SAT iyo IELTS test certificate-kii. marka ardayda halkan waxaa soo gudbinaysa shahaadooyinka Englishta ardayda aan waxbarashadooda heerkooda waxbarasho aan kusoo qaadan luqadda Englishta. marka Soomaalida badankoodu jaamacadaha digriga iyo master taba English ay ku qaataan marka uma baahna filaya. waxaaynu tagaynaa haddaba sidaynu xareysan lahayn scholarshipkan. halkaas aynu ku dhufanay application online. kadibna waxa aynu kasii tagaynaa hoos baynu soo wadaynaa submit ayaynu ku dhufanaynaa. submit markaaynu ku dhufanay waxa uu inoo soo saarayaa pagekan sign up iyo sign in. haddii aad lahayd hore ood u samaysatay sign in ayaynu ku dhufanaynaa. haddii kale sign up ayaynu ku dhufanaynaa. marka gmail cusub si aynu u samaysano account cusub.
halkana password ayaynu u samaysanayna aynu accountkeena hadhow toolo ku geli doono isla kii ayaynu halkana ku celinaynaa halkana waxa aynu gelinaynaa magaca koobaad ee ardayga magaciisa halkana magaca awowgii kadibna sign up ayaynu odhanaynaa kadib waa uu inoo samaysmay waxaynu odhanaynaa submit ayaynu dib u odhanaynaa haddana hadda toos ayaa uu inoogu galay oo kaa maxamed cali ayaynu ku dhex jirnaa haddaba waa kaa waxaynu ku dhex jirnaa accountkeenii gudihiisii si aynu u xaraysano applicationkeena waxaynu sameynaynaa horta inta hore ayaynu akhrisanaynaa halkan waxa uu kaga sheekeynayaa applicationkan waa applicationka 2020 ilaa 2021ka human rightska xuquuqul insaanka ururka xuquuqul insaanka iyo dimuqraadiyadda Africa ayaa soo bandhigay sidoo kale jaamacadda University of Pretoria ee South Africa ayaa ka qayb qaadanaysa marka you'll be notified ardaygu wuxuu marka halkana you will be notified by the end of the May wuxuu ku yidhi waxaa lagu soo wargelinayaa in aad ku guulaysatay iyo in aanad ku guulaysan dhammaadka bisha May 2020ga marka waqtigaas ayaad sugi doontaa si aad u heshid jawaab marka waxaynu ku horeynaynaa qaybta section A oo personal information ka sheegaysa personal information kan halkan waxaad ka dooranaysaa dalka aad ka soo jeedo baasaboorka asetid dalka uu yahay tusaale ahaan Soomaaliya ayaynu odhanaynaa halkana lab iyo dhadig ka tahay female baynu odhanaynaa halkana do you personally identify as a lesbian kuwana waa transgender iyo waxa weeye hay'adaha iyo waxaasa ka shaqeeya marka no ayaad odhanaysaa do you have any disability that should be aware wuxuu ku yiri halkan wax miyaad leedahay in sida haddii aad tahay qof handicaba no waad odhanaysaa hadday tahayna ha halkana wuxuu ku yiri miyaad ka tirsan tahay ururada tusaale ahaan oo kale waa ururo sheegta deegaanka ay degan yihiin inay yihiin dadkii loogu yimid sidoo kale dowladda dalkooda ee deegaankooda ka jirta kama qayb qaataan oo waxay isku maamulaan dhaqan ahaan iyo howlahaas marka adigu waa ururo aan ka jirin dalalkeena oo dalalka Afrikada kale ay ka jiraan marka noobaad odhanaysaa halkana age sanada 2021ka intee ayaad noqonaysaa tusaale ahaan oo kale 26 waa qiyaas marka sanada 2021 imsa noqonaysaa wuu ku leeyahay yani da'daada halkana waxaad gelinaysaa your contact numberkaaga halkana full name and contact number of your next skin halkana waxaad gelinaysaa qofka labaad ee lagala soo xiriiri karo tusaale ahaan oo kale magaca hooyada iyo numberkeeda sidoo kale aabaha oo tusaale ahaan oo kale jaamaca numberkiisa markaasina waa ka markaa laba qof oo lagala soo xiriiri karo ayaad sheegaysa oo mas-uulka noqon kara physical address halkana waxaad gelinaysaa xaafadiina magaceeda iyo magaalada aad degan tahay zip code-ku waa +252 waa furaha lagu soo galayo dalkiina iyo country iyo dalka aad joogto
tusaale ahaan physical addresska waxaan odhan karaa Hargeysa main street. sidoo kale Hargeysa ayaan odhan karnaa city. Furahana 252. countryna Somaliland baynu odhanaynaa. marka where did you learn about this program buu ku yidhi, xageed kasoo aragtay scholarshipkan amba programkan? waxaad odhan kartaa intaas meelood halkii aad kasoo aragtay. marka inagu waxaynu kasoo aragnay Facebook page, iskasoo dhaaf. kadibna marka aad dooratid halkana please indicate the degree classification applied for. wuxuu ku yidhi kee ay degreegii ayaad xareysanaysaa adigu. marka wuxuu ku yidhi halkan mar walba halkan qoraalada halkan uu kugu soo bandhigaya waa uu ku tilmaamaya. marka LLM waxa weeye Master of Law ayaa loo soo gaabiyey. marka waxaa xareysan kara ardayda sidata Bachelor Degree Lawga sharciga. halkan MPhil buu u soo gaabiyey oo ay taagan tahay Master of Philosophy. marka waxaa xareysan kartaa ardayda aan lawga sidan laakiin la xiriira lawga. marka waxaynu odhan karnaa LLM tusaale weeyaan ayaynu xareysanaynaa. ardayga sita sharciga kalena wuxuu xareysanayaa MPhil ardayda sita Bachelor Degreega la xiriira lawga human rights la xiriira your academic qualification. halkan waxaad kaga sheekeynaysaa heerarkii waxbarashadeed ka gaadhay. tusaale ahaan undergraduate ma sitaa, jaamacadda aad ka sidatid, golis baan odhan karaa. golis ayaan halka geliyay waa tusaale. sidoo kale degree class heerkii degreega aad ka gaadhay. tusaale ahaan oo kale wuxuu ku for the applicant without degree classification. ardayda aan degree classification waraaqadii qeexaysay in ay sitaan degreega aan haysan but were non-cumulative average haysta GPA-ga bay ku qeexi karaan. marka tusaale ahaan oo kale waxa aynu sameyneynaa GPA-ga aynu ku qeexaynaa. marka GPA-ga intaad ka keentay waxaan odhan karaa 3.6 type undergraduate. waxa weeyaan degreega amba bachelor degreega aad haysataa waa noocee? ma bachelor lawga ma sidoo kale ma physiology aad ka sidataa bachelor degree mise undergraduate kale oo la xidhiidha. marka waxaad odhanaysaa bachelor degree of law sharciga ayaan ka sita. halkana year of graduation wuxuu ku yidhi imsa sano ayaad kaga baxday. tusaale ahaan 3 sano ayaan kaga qalin jabiyey bachelor degreegii. halkan u kaalay. halkan waxa uu ku yidhi please indicate your top 4 subjects with credits. wuxuu ku yidhi 4 maado ayaad halkan kusoo gudbinaysaa oo aad ku sareysay waqtigaagii ugu dambeeyey ee jaamacadda. marka 4 maado magacyadoodii ayaad qoraysaa. sidoo kale darajooyinkii aad ka keentay ayaad qoraysaa. waa 4tii maado ee aad ugu sareysay sanadii ugu dambeysay ee jaamacadaada. halkana waa cagsigeeda oo waxaad halkan gelinaysaa 4 maado oo aad ugu hooseysay sanadii ugu dambeysay ee jaamacadaada. magacyadoodii iyo darajooyinkoodii waad soo hordhigaysaa. sidoo kale halkana please indicate your grades in 3 subjects you consider having the clearest link to the study of human rights and democratization. waxa uu ku yidhi halkana waxaad gelinaysaa 3 maado oo aad u tixgelinayso sidoo kale aad u aragto in xidhiidh weynay uu ka dhexeeyo programkada xareysansa human rightska. ood is leedahay waa isku waxa weeyaan waxa ka dhexeeya isku mid relationship ayaa ka dhexeeya koorsada soo baratay iyo programkadan xareysanayso. marka 3 maado ayaad halkaa ku qoraysaa.
do you obtain your degree with a dissertation or mini dissertation? waxa uu ku yidhi labada kelmadood waxa weeye dissertation iyo mini dissertation waa master aad ku qaadatay amba degree aad ku qaadatay qaab kooras ahaan ah koorasyadoo keliya taa dhigtay oo thesis book iyo xamad qorin. kan kalena waxa weeye waa waxaad ku qaadatay qaab research ahaana markaa research ahaan ayaad ku diyaarisay. markaadna waad odhanaysaa halkan haddii aad caad u qaadatay noobaad odhanaysaa, haddii kalena yes baad odhanaysaa. did you receive your qualification in English? wuxuu ku yidhi miyaad ku qalin jabisay heerkaaga waxbarasho ugu dambeeyay English. notable academic achievement waxaad halka kaga sheekeynaysaa waqtigaagii waxbarashadaad ku jirtay guulo aad gaadhay ayaad halka kaga sheekeynaysaa. tusaale ahaan oo kale abaalmarino aad heshay. sidoo kale waxaad kaga sheekeynaysaa moot courts dacwado aad ka qayb qaadatay ood ku guuleysatay. sidoo kale doodo aad ka qayb qaadatay ayaad halkan kaga sheekeynaysaa. markaa section b waynaga dhammaynay. section c ayaynu gudbinaynaa oo qeybta saddexaad ayaynu gudbaynaa. your employment and work experience. halkan waxaynu kaga sheekeynaynaa waxa weeyaan shaqada aad ka shaqayso iyo waxyaaba la xidhiidha. do you have any relevant work experience? miyaad leedahay buu ku yidhi khibrad la xidhiidha programkan aad xareysanayso khibrad shaqeed oo la xidhiidha programkaad aad xareysanayso. hadday tahay yes, marka waxaad kaga sheekeynaysaa halkan position held positionka aad ka haysay shaqadaas. tusaale ahaan oo kale human right activist baan odhan karaa waa positionka. employer halka aad ka shaqaysid, tusaale ahaan oo kale human right center in Hargeysa ayaan odhan karaa. waxaan ka shaqeeyaa xuquuqul insaanka qeybteeda Hargeysa. waqtiga aan galay waa 2015 bishii shanaad bishii labaad kowdeedii ilaa hadda ayaan jooga oo 2020gii bishiisii koowaad 27keedii. marka kaasina sidaas your main responsibility waxyaabaha aad qabatid. tan saddexaadna waxaad kaga sheekeynaysaa brief or describe your main responsibilities. su-aalahan waxaad qori kartaa halkana waxaan gelinayaa briefly. saddexaad wuxuu ku yidhi briefly describe your main responsibilities. waxyaabaad mas-uuliyadda aad qabataa waa maxay? waa defending human right xuquuqlisaanka ee difaaca waa shaqada aad qabatid. tusaale ahaan section d waa qeybta section d. halka waxaad kaga sheekeed ku qoraysaa letter of motivation. letter of motivation waa maxay? waa waraaqad aad kaga sheekeynayso academic interest. waxa weeyaan waa xiiseynta aad xiiseynayso programkan aad xareysanayso. sidoo kale waxaad kaga sheekeynaysaa baadhitaanada aad ka bixisay programkan aad xareysanayso aad xiiseynayso. sidoo kale khibradda aad u leedahay programkan iyo shaqada aad khibradda shaqee aad leedahay iyo xirfadaha kaa caawin karaa in aad programkan ku guuleysatid, sidoo kalena aad soo baratid. marka letter of motivation waxaad kaga sheekeynaysaa akademigaagii heerarkaagii waxbarasho ee kala duwanaa ayaad kaga sheekeynaysaa. sidoo kalena siday ula xidhiidhaa programkan aad soo baranayso
iyo waxbarashadaadii aad soo baratay, sidoo kalena khibradaada shaqeed iyo skilliska iyo xirfadda aad u leedahay programkan ee la xidhiidha programkan ayaad kaga sheekeyn kartaa. kaasina intaas ayaad kaga sheekeyn kartaa. marka tusaalooyin letter of motivation googlaha ayuu ku jira, si aad uga eegtid waad kala soo degi kartaa. section E halkana qeybtana waxa weeye fees and funding. haddaba scholarshipkani waxa uu kala baxayaa 3 qaybood. horta 2 qaybood buu kala baxayaa. waa qayb aad lacag isaga bixinayso iyo qayb laga bixinayo. marka qaybta lacagta isaga bixinaysid haddaad awoodid waad iskaga bixinaysaa oo $15,000 weeyaan ayaad ku bixinaysaa. haddii kalena aad maxay ahayde iyagu ay ku maalgelinayaan tusaalahaan kale scholarship ahaan. scholarshipka wuxuu kala baxaya scholarshipkani mid full ah iyo mid partial ah oo maxay ahayde aan dhamaystirnayn iyo mid dhammaystiran. marka oo half ah, ka partial waa half, qaybna waa iska bixinaysaa qaybna waa laga bixinaya, fullkuna waa iyaga ka wada bixinaya. marka tusaalahaan waxaynu codsanaynaa full scholarship ayaynu odhanaynaa. write your financial aid statement for a full scholarship. waxa weeyaan halkana waxaad ku gudbinaysaa qoraal ilaa 800 oo kelmadood ah oo aad kaga sheekeynayso waraaqadaas ood ku codsanayso in laga bixiyo programka si aad ugu dhigatid bilaash. marka waxaad kaga sheekeynaysaa waxyaabaha kugu kalifay in aad tusaale ahaan aad xaraysato inaad ku xaraysatay scholarshipkan full free. sidoo kale familygaagu waxyaabaha ay qabtaan, shaqada ay qabtaan, sidoo kale dakhliga kusoo galaa iyo howlahaas ayaad kaga sheekeynaysaa. marka waraaqad tusaale ahaan financial aid statementkaas for scholarship waxay ku jirtaa waraaqad amba video ka sheekeynaya iyo samples waraaqooyin waxaan kusoo bandhignay channelkayga ayaad ka eegi kartaan si ayd wax badan uga fahantaan waraaqadani waxa ay tahay iyo howlahaas. marka qeybta ugu dambeysa section F wuxuu ku yiri upload your supporting documents. waxaad halkan kusoo gudbisaa documentka ku caawinaya. marka waa documentskii laga doonayay xagga hore kusoo sheegnay. tusaale ahaan recommendation letter 1 waa waraaqad recommendation letter ah oo aad kasoo qoranayso macalimiintaadii macalin ka mid ah. sidoo kale tan recommendation letter waxa weeyaan waa iyaduna waa tu la mid ah taa hore oo iyaduna waxaad kasoo qoran kartaa macalimiintaadii ku dhigaysay macalin ka mid ah amba shaqada aad ka shaqayso qofka kaa sareeya ee ku maamulaya. haddii aad shaqo ka shaqeyna labada recommendation letter waxaad kasoo qoraysaa 2 macalin waqtigaaga jaamacadda haddii dhiin tahay ama haddii macalimiin tahay. haddii aad shaqaysidna midna waxaad kasoo qoranaysaa macalinka, midna waxaad kasoo qoranaysaa shaqadaad ka shaqayso qofka ku maamulaya ayaad ka odhanaysaa ii qor. kadibna halkana waxaad ku gudbinaysaa upload your degree certificate. waxaad halkan aad ku gudbinaysaa shahaadooyinkaagii heerarkaaga waxbarashada ee kala duwanaa. select up 3 files to attach, no files have been attached. marka waxa uu ku leeyahay halkan waa inaad kusoo gudbisaa shahaadooyinkaagii heerarkaaga waxbarashada kala duwanaa sidii bachelor degreegii iyo secondarygaagii. halkana waxaad kusoo gudbinaysaa darajooyinkaagii heerarkaaga waxbarashada kala duwanaa sida darajooyinkii waqtigii jaamacadda, GPA-gaagii iyo transcriptigii secondaryga ayaad halkan ku gudbinaysaa. halkana waxaad ku gudbinaysaa waa copy passaportkaagii halkii ay ku qornaayeen name magacaagii iyo waqtiga dhalatay iyo numberkaagii iyo waqtiga uu dhacayo. halkii personal informationkaaga oo ku qornay sawirkaaga ku dhisan yahay. sidoo kalena halkana sawir kur ah ayaad soo gelinaysaa oo sawir kur ah oo ka passaportka oo kale ah. marka laakiin halkan waxaan aad idinkula dardaarmayaa in aydu soo gelisaan markaydu documentka halkaas soo gelinaysaan
mid walba in aydu halkan eegtaan qaabka loo soo gelinayo. imika tusaale ahaan oo kale halkan waxaad soo gelinaysaa waraaqad pdf ahaana, sidoo kale mid word ku qoran, halkaas word doc, waa labadaasba waa word, laakiin gbg-ga sawirada iyo waxa waad ka ilaalinaysaa waraaqaha sawirada iyo labada qayboodba. markaad soo gelinaysa choose file baad ku dhufanaysaa, kadibna halkaas ayaad ka soo gelinaysaa. labadaa waynu fahanay. filaya labadan kuwan kalena oo ikhtiyaarkaadaas kale pdf, document ahaan text, gbg iyo gif iyo kuwa kalena waad soo gelin kartaa sawir iyo waraaqado inta kaleba. marka submit ayaad odhanaysaa, kadibna waxa weeyaan waad gudbisay. haddii aana submit odhanayna safe draft waxa uu si ku meel gaar ah ayaad u safe garaysanaysaa, si aad u checking good u saartid, aada u eegatid. haddii ay ku dhamaystiran tahayna submit ayaad odhanaysaa. kaasina waxa uu ahaa habka loo xariisto iyo waxa uu yahay scholarshipka uu soo bandhigay ururka Center for Human Rights-ka, ururkaasoo u dooda xuquuqul insaanka qaaradda Africa oo xaruntiisu tahay dalka South Africa, caasimadiisa Pretoria. scholarshipkaas waxaa idin rajeynaya ardayda baratay sharciga iyo ardayda baratay digriga la xidhiidha sharciga sida philosophiga iyo xiisadahaas in ay ka qayb qaadan karaan scholarshipkan. ayaan idin salaamayaa, guul ayaan idin rajeynayaa.